أنا أحمد حسين كلمية بكارها أيها برعد نوصون وررتي وحاد هجامها أو نطلع إن على الأجاس أيها قدوميها قبل كبراندر نطلع أنا قلنا الصومالية أيام هاي أنت أسوأ السنة أيام سديتني الله بدي أسودني برعد داس إن جلقبته الدولة الصومالية أي نجقبتنا وباهنا أو يدك المسلمين تا علابتين السياسة اللوجيشي كتربيل إيا عيدا إيا وحول بان ندول تاجن أو مدحويني أو الرسول ساري أو قدومية بارلانك ورعادة قبطة وريا مسلمة وراوح اللي ملاي الصومالية وردتك آوي وردتك أنا قبطة وفلسطين أنا غنقو يهودو قراعي وراوي السلام عليكم الله الرحمن الرحيم waxaa dhulkeena dhacaya ninka la yiraahdo gudoomiye yariisow wuxuu dhacaya in cali ugaas waxaana dhismo iyo cagaf ugu yimid xalane yaa annaga meelaan tagna aan weysanay meeshii aan fadhinay waa nalaga raacdaystay 4 bilood waa la meermeerinay qorraxda ayaa nagu dhacaysay dhulkeeni oo soo degnay ayaa 45 sano aan deganaa oo gabar yaraha soo degadana habar waayeelaan yaa hadii islaamnimo jirto aqalka sare madaxweynaha salwasaaraha hanaga qabtaano iyo inta islaana oo islaamnimo sheegato 63 qofood aanna 2 qof aan nool dhacaya nadiifo iyo cali ugaas hana laga qabta day islaamnimo jirto waaway arrinkan waa cabash annaga oo 63 qofood oo muwaadiniin oo 226 qof dhulkanaga inta la gubay 5 bilood ka hor sidaan annagu rumaysanahay waayo waxa weeye sasaanka ayaa hadii la kuruway dhulka dadka hadii la kuru hadda haysta waxaan haysta hadda garanba mayno waa wareernay waxaan oo garanaynaa gudoomiyaha gobolka ayaan haysta anagu waxaan garanaynaa dadka kale aan dhulka sheekadiisa la sheegay sheegaadana uurkaagu shaydama dhigaaba waa way qof noo yimi iyo qof waxaan leeyahay ku leeyahay lagu yiraahdo iyo qof waxbaan leeyahay ma aanan arag markii dhulku gubtay ayaa waxaan la ku yiri dhulkiina 63 qofood ma dhisan kartaan intay kalena waa la siiyay dhulkooda war maxaa naloo takooray baan niri ma waxaana koonfur afrikaan warka gaabi waaway waxaan rabnaa sida madaxweynaha dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka gudoomiyaha golaha baarlamaanka labada gole oo xildhibaanada Soomaaliyeed nin kasta oo mas'uul ah sida saraakiisha kala duwan oo ciidamada qalabka sida nin kasta oo muwaadinimo ama mas'uuliyad ahaan taabanaysa waxaan rabnaa dadka la dhacayo oo miskiinta ahaanahay oo muwaadiniinta oo tabartaya